madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaaran oo ay ka mid yihiin safiirada dalalka Norway, Sweden, Finland, Denmark iyo Midowga Yurub iyo madaxa xafiiska Ingiriisku ku leeyahay magaalada Hargeysa oo ay weheliyaan mas'uuliyiin sarsare oo ka socotay safaaradda Jarmalka iyo xafiiska horumarinta ee UK. waxaa kulankaasi lagaga wada hadlay arrimaha doorashooyinka Somaliland, xaaladda abaareed ee dalka oo ka sii daraysa, qorshaha horumarinta qaranka Somaliland ee saddexaad iyo doorka ay beesha caalamku ka geysan karaan fulinta qorshahaasi, arrimaha nabadgelyada mandaqada Geeska Afrika iyo kaalinta ay Jamhuuriyadda Somaliland ku leedahay. Bayaan ka soo baxay xafiiska afhayeenka madaxtooyada Somaliland ayaa lagu sheegay in kulankaasi uu ku soo dhamaaday is-afgarad buuxa iyo wada shaqayn in sanadkani lagu howlgalo lana dardargeliyo howluhu siday u kala muhiimsan yihiin una kala mudan yihiin. waxaana madaxweynaha kulankaasi ku wehelinayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah, wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda, wasiirka qorsheynta iyo horumarinta qaranka iyo safiirka Somaliland ee Kenya. dhanka kale madaxweynaha Somaliland waxa uu madaxtooyada ku qaabilay ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Dr. Aadan Cabdi Mawla. kulankan ayaa lagaga wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin nidaamkooda shaqaynta ee Somaliland iyo qaramada midoobay ee ay ugu horeyso mashaariicda qaramada midoobay ka fuliso gudaha Somaliland, xaaladda guud ee abaaraha dalka ka jira iyo qorshaha Somaliland ee ku aadan arrimahaasi, iyo sidoo kale doorka ay qaramada midoobay ka qaadan karto gurmadka abaaraha. sida lagu sheegay bayaankaasi waxa kale oo ay xukuumaddu ilgaara ku eegaysaa iyadoo oo dalbatay in gobolada bariga Somaliland loo kordhiyo mashaariicda qaramada midoobay, maadaama oo ay mashaariicda qaramada midoobay ka fuliso goboladaasi ay yar yihiin waxna laga bedelo nidaamka ay uga howlgalaan hadda. labada dhinac ee qaramada midoobay iyo Somaliland waxa kale oo ay ka wada hadleen sidii ay Somaliland uga jawaabtay abaarihii hore ee dalka ka dhacay iyo duufaantii sagar ee ku dhufatay xeebaha Somaliland, xakamayntii xanuunka COVID-19 iyo tallaalkii bilaashka ahaa ee ay Somaliland gaarsiisay dadka shacabka ah oo ay sheegeen in ay tahay arrin muhiim ah oo soo jiidatay indhaha beesha caalamka in Somaliland ay muujiso dadaalka intaasi leeg. waxaa madaxweynaha Somaliland kulankaasi ku wehelinayay wasiirka qorsheynta iyo horumarinta qaranka Somaliland, halka dhinaca wafdigana ay wehelinayeen ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay, madaxa xafiiska isku duwidda arrimaha bini'aadamtinimada ee qaramada midoobay iyo madaxa xafiiska qaramada midoobay ee Hargeysa.